bismillaahi raxmaani raxiim kulan wanaagsan qiyaarta nala socotay idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo baahin kale oo ku saabsan barnaamijka qubanaha wararka ee Barrow Show waa 24ka bisha Oktoobar sanadka 2025 qodobadaan idinkugu haya tabintan waxa kamid ah diyaaradaha dagaalka ee wadanka Shiinaha ayaa arrin la yaab leh ka sameeyay badda cas kadib markii ay dul mareen saldhigyo kala duwan oo ay leeyihiin ciidamada wadamada reer galbeedka oo Mareykanku uu kamid yahay hase ahaatee diyaaradahaasi ayaa la sheegin in raadeeradii ciidamadaasi ay lahaayeen ay soo qabteen laakiin waxaa lagu baraarugay iyagoo dhoolatus military oo wada jira la sameynaya ciidamada cirka ee wadanka Masar Shiinuhu ma waxa uu sameynaya dhaqdhaqaaq military mase waxa ujeedadiisu ahayd in fariin dagaal uu u diro dalka Mareykanka sida caawa u falanqeynaya warbaahinta adduunka warbixin xiisala ayaan idinkaga hayaa arrintaasi madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin caawa waxa uu sameeyay hanjabaad la yaab leh kadib markii uu yiri haddii gantaalaha Tomahawk lagu duqeeyo qaybo kamid ah wadanka Ruushka lana siiyo wadanka Ukraine waxaynu qaadi doonaa dagaal qayladhaantiisa meel walba oo adduunka laga maqlo haddaba shirka jaraa'id ee goordhow lagu gabagabeeyay aqalka Kremlinka ee wadanka Ruushka iyo fariinta loo diray dawladda Mareykanka ayaa barnaamijkan idinkula wadaagaya qiyaarteena la socotay xogayaha muraha dibadda ee wadanka Mareykanka Marco Rubio waxa uu gaaray Tel Aviv isagoo kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu Mareykanku waxa uu markan fariin adag gacanta ka saaray Israel oo ku saabsan arrimaha xal u helida dagaalka ka soconaya gobolka Bariga Dhexe aqyaarteena la socotay qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu hayaa tabintan xiisaha leh meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka Barrow Show kuna soo biira YouTube-ka oo subscribe saara haddii dhinaca Facebook aad nagala socotaan sharaf bay inoo tahay inaad nagu soo biirtaan ood mahadsantiin ciidamada cirka ee dalka Shiinaha ayaa qaaday tallaabo la yaab leh oo ay ka sameeyeen badda cas kadib markii ay dul mareen dhowr saldhig oo kala duwan oo ay leeyihiin ciidamada wadanka reer galbeedka ama wadamada reer galbeedka uu kamid yahay dalka Mareykanka diyaaradahan ayaa la sheegay intii ay dul marayeen halkaasi oo ay duulayeen in ka badan 7,000 oo kiiloomitir in aanay jirin wax raadeera oo ay leeyihiin ciidamada ay dul mareen saldhigyadooda in ay soo qabteen taas oo hadda shaki gelinaysa qalabka kontaroolaha hawada ee dalka Mareykanka iyo kuwa reer galbeedka saameynta ay leeyihiin qubarada qaar oo tallaabada fasiray waxa ay ku tilmaameen in Shiinaha uu diray fariin dagaal oo istiraatiiji ah isla markaana soo bandhigay awood uu ku tilmaamayo inuu kaga horeeyo wadamada reer galbeedka oo Mareykanka ku jiro iyadoo waayidii ugu dambeysana xiisada labada dal waa Beijing iyo Washington ay kor u sii socotay sida uu goordhow caawa oo qoray telefishinka Sky News Arabic ee laga leeyahay wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta ay soo xiganaysa ila dhinaca Israa'iil duulimaad ay fuliyeen diyaarado dagaal oo casri ah oo leeyahay dalka Shiinaha ayaa dul maray saldhigyo ku yaala badda cas oo ay leeyihiin wadamada reer galbeedka oo Mareykanku kamid yahay isla markaana waxa ay gaareen gudaha wadanka Masar iyadoo aan jirin wax raadeera oo wadamadaasi leeyihiin oo diyaaradahan qabtay waxay ka qayb galeen baa la yiri arrimo la xiriira dabaaldeg ama waliba dhoolatus military oo ay la sameeyeen ciidamada wadanka Masar taas oo Beijing ay ku tijaabisay awoodda ay leeyihiin ciidamadeeda cirka marka ay ka gudbayaan xuduudo kuwa cadawgeeda ah ay fadhiyaan sida lagu tilmaamay warka ka soo baxay Israa'iil ee loo dusiyay telefishinkaasi arrintan waxay ka dhigan tahay fariin dagaal mid siyaasadeed ama mid istiraatiiji ah maxaa lagu macnayn karaa qabiirka ka faallooda arrimaha dagaalka iyo waliba siyaasadda gobolka Bariga Dhexe Dr. Hamid Faris ayaa sheegay in arrintan aysan ahayn kaliya tababar caadi ah balse ay tahay isbedel istiraatiiji ah oo ku yimi siyaasadda dibadda ee Shiinaha waxa uu sheegay in Shiinaha hadda uu isku dhafaya baa la yiri awoodda dhaqaalaha siyaasadda iyo hubka taasi oo muujinaysa in uu doonayo saameyn muuqata oo ka baxsan dhaqaalaha kaliya sida ay tilmaamayaan qabiirkan oo hadalkiisa u dhigay
in ka badan 12 diyaarad oo Shiinaha ayaa la sheegay inay ka qayb galeen dhoolatuskaasi waxaana ku jiray 6 diyaaradood oo casri ah oo loogu talagalay kuwa dagaalka 5 diyaarad oo ah kuwa xamuulka qaada iyo diyaarad nooca qumaatiga u kacda ah iyagoo si qarsoodi ah uga gudba baaliri badda cas oo ay ka buuxeen saldhigyo iyo maraakiib ay leeyihiin quwadaha reer galbeedka tan waxaa loo arkaa tijaabo lagu eegayo awoodda Mareykanka ee kormeerka hawada oo Shiinahu ay si dhameystiran u muujinayaan inay haatan gaarayaan meel aad u sareysa falanqeyn ciidan ayaa tilmaamaysa in Beijing ay doonayso in ay tijaabiso awoodda nidaamyada raadarada Mareykanka ee gobolka iyagoo socdaalkana lagu sheegay in ka badan 7,000 oo kiiloomitir in aan lagu ogaan taasi oo keentay su'aal weyn oo ku saabsan waxtarka nidaamyada raadarada reer galbeedka ee halkaasi lagu rakibay aqoonyahanka lagu magacaabo Dr. Hamid Faris waxa uu sheegayaa in Shiinuhu uu si degdeg ah u soo dhaweynayo ama uu kormeerayo Mareykanka dhinaca tiknoolajiyada militariga gaar ahaan dhinaca diyaaradaha awoodda u leh inay iska qariyaan raadarada ay ismarkaana isticmaalaya tiknoolajiyada casriga tani waxay muujinaysaa baaliri inay si soo gaareen amaba ay kala hormareen awoodaha dhinaca tiknoolajiyada ee wadamada Mareykanka iyo Shiinaha warbixinta Sky waxay leedahay inkasta oo Shiinuhu uu ku horeeyo difaaca wax soo saarka warshadaha militariga iyo isticmaalka macdanta naadirka ah haddana Mareykanka ayaa weli leh khibrad dagaal iyo tiknoolajiya hawadeed oo si aad u qoto dheer si kastaba Shiinaha ayaa la rumaysan yahay inuu hadda leeyahay awood uu kula tartami karayo Mareykanka dhinaca tiknoolajiyada militariga hase ahaatee Masar tallaabada ay qaaday ayaa qudheeda waxay muujinaysaa isbedel saameynteedu aad u sareeyo Masar ayaa loo arkaa goob muhiim ah oo Beijing ay si weyn u naawilayso waa Shiinaha maadaama ay ku taalo bar juqraafi ahaan istiraatiiji ah oo isku xiraysa Afrika, Aasiya iyo Yurub isla markaana ay leedahay xiriir difaac oo dheelitiran oo ay la leedahay quwadaha bariga galbeed labadaba taas oo Masar u yeelaysa xiise gaar ah isla markaana dhinac kasta uga dhigaysa inay tahay mid muhiim ah si ka duwan wadamada khaliijka oo si dhameystiran isugu dhiibay dalka Mareykanka iyo quwadaha reer galbeedka Faris waxa uu ku adkaystay in iskaashigan uu ka dhanka ahayn Mareykanka iyo cid kale balse uu qayb ka yahay baaliri siyaasadda Masar ee isku dheelitirka xulafada difaaca ee adduunka si madax banaanideeda ay u ilaaliso iyo guud ahaan badanaha qarankeeda taas oo dadku ay hadda si weyn isku weydiinayaan xogayaha muraha dibadda ee wadanka Mareykanka Marco Rubio waxa uu gaaray Israel isagoo fariin adag gacanta ka saaray ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay ku kulmeen Tel Aviv maadaama dowladda Mareykanku ay markan ka go'an tahay in heshiiska magaalada Gaza dhinac kasta la fuliyo aysan Israel ku qasbanaan iyadoo Mareykanka markan uu garab siinayo in halkaasi heshiiska lagu gaaray Sanjabin wasiirka muraha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa gaaray Khamiistii shalay Israel si uu u xoojiyo heshiiska xabad joojinta ee Gaza xilli Washington ay si rasmi ah uga digtay Tel Aviv in aysan lumin taageerada Mareykanka haddii ay ku dhaqaaqdo qorshaha la doonayo in ay daanta galbeed ku laqaan sida Mareykanka uu ku tilmaamay haddii Israel ay dhiirigeliso ama ay ku dhaqaaqdo tallaabada ay daanta galbeed ku laqayaan in guud ahaanba taageerada Mareykanku ay lumin doonaan sida Trump uu u sheegay jariirada maanta oo wareysiga siiyay Time sida uu hadalkiisa u dhigay Rubio iyo waliba dowladda Faransiiska ayaa labadaba waxa ay muujiyeen inay ka go'an tahay in heshiiskaasi la dhaqan geliyo waxna hadda muuqanaysa Israel inay wajahayso cawaaqib adag oo ku saabsan sida loo hirgelin karo arrimaha la xiriira heshiiska oo aysan suuragal ahayn Mareykanka markan in ay si weyn uga hor yimaadaan qatar weyn oo saameyn karaysa mustaqbalkooda sida hadalka loo dhigay isla markaana dowladda Mareykanku ay ku dadaalayso in heshiiskaasi aanu jirin cid dumin karaysa oo dhibaato u geysan karta dhinaca kale waxa goordhow soo gabagaboobay shir jaraa'id uu qabtay madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin
kaasi oo uga jawaabaya canshuur xad dhaaf ah oo dalka Mareykanka ku soo rogay laba shirkadood oo shidaalka soo saarta oo ku tiirsan yahay dhaqaalaha wadanka Ruushka. madaxweyne Putin oo la hadlay wariyaasha isagoo ku sugan aqalka Kremlinka ee Moscow waxa uu yiri cunaqabatayntaani ma noqon doonto mid saameynaysa dhaqaalaha wadanka Ruushka iyo madax banaanideena. waxaan nahay dal dhameystiran oo isku filan talaabooyinka Trump uu qaadana waxay noqonayaan oo kaliya kuwa si gooniya iyaga u saameyn karaya wadankeena. waxa uu leeyahay buu yiri awood isku filnaanshiyo ah oo xagga dhaqaalaha ah. Trump ayaa canshuur ku soo rogay wadankaasi shirkadihiisa shidaalka maadaama horena cunaqabatayn kale uu ugu hayay. waxaana hadda muuqanaysa in talaabooyinkan ay noqonayaan kuwa xiisada sii kordhinaya iyadoo hore u baaqday heshiiskii Budapest ee Hungary la doonaya in lagu qabto. dhinaca kale madaxweynaha wadanka Ruushka Putin ayaa hanjabaad xoog la u jeediyay Mareykanka waxana uu yiri haddii gantaalaha Tomahawk lagu wareejiyo dalka Ukraine isla markaana mid kamid ah gantaalahaasi rasaastiisa ay ku soo dhacdo wadankeena adduunka waxa uu marqaati ka noqonaya in dagaalku uu ballaaran doono isla markaana dhinacyo kala duwan ay qayladhaanta iyo shanqartu ay gaari doonto ayuu yiri Putin. inkastoo dowladda Mareykanku aanay si rasmi ah gantaalahaasi u siin wadanka Ukraine Volodymyr Zelenskyna uu wajagabax la soo laabtay haddana waxa muuqanaya in xiisada labada dal ay aad u sii kordhayso. Trump iyo waliba dalka Ruushka ayaa sii kala fogaanaya laakiin shirka jaraa'id uu caawa qabtay madaxweynaha wadanka Ruushka Putin waxa uu yiri wadankayga waxa uu diyaar u yahay wada hadal kasta oo la doonayo in lagu soo gabagabeeyo colaadaha muddada dheer soconaya isla markaana majaalka diblomaasiyaddu uu waligeed furnaan doono. akhyaartana la socota ay tabintan intaas ayaan ku gabagabaynayaa. warar kale ayaa noo soo socda. soo dhawaada YouTube kana subscribe.